بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله waxaan kaga hadlaynaa halkan maanta udxiyada tacriifkeeda iyo fadligeeda iyo xukunkeeda iyo maxaa looga jeedaa udxiya maxaa looga jeedaa asal ahaan xagga diinta in la fahmo wixii ay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka yidhi udxiyada ayb tacriifuhaa marka u horeysa waxaan rabaa intaan taabto maa hiya udxiya maxay tahay الأضحية هي الشاة التي تذبح ضحى يوم العيد تقربا إلى الله تعالى ونفك عريقة أما اللوضة بقى أما قيلة بقى ولا قورع أيو مالنك عيدة أضحية الليلة ومارتي يوم العيد يوم العرب بعد عرفة معك عرف هذا مالك كدن بيوية وقتك برقنك عيال قورعية حالا قورعية تقربا إلى الله تعالى إلهي بقى لو كدوانها سبحانه وتعالى حكمها الأضحية حكم كيدو وحوي سنة واجبة وسنة واجبة علماء الدين على كل أهل بيت قولي كستو مسلمة أو كره إنو بحيو واجبة كتاي وأنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لقوله تعالى because دليلكنا وحوي هذا الكي إلهي سبحانه وتعالى وكل القرآن فصلي لربك وانحر فصلي تكو لربك أتكو وانحر قورعنا إلهي أتكو قورع حالوغة كذا صلاة تكو مركا هوري كدب لقورع مركا لسوتو كان هيا كدب لقورع يا كهر لما قورع يا هدي كهر لقورع ما أصحضه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم نبي قويري من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ننك الصلاة كهر قورعها سعريو وقول أبو أيوب الأنساري وحيري كان الرجل وحوها ننكو بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي جوه ننكو وحوها يعني يضحي وحو أضحيين جري بالشاة هال نيفة عنه إساق حقيسة وعن أهله إساق أهل كيسة أيوه كأضحيين جري يعني كقورعي جري fadligeedana nusuus fara badan baa horta qiraysa oo maaragtay yani fadli cadiima ayay leedahay waxaa ka mid ah qowlka nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa camila ibnu aadam ma sameeyo yooma naxri maalinka ama yooma naxriga la yidhaaho maalinka ciidda axabu ila allaahi wax ilaahay looga min iraaqati dam inuu dhiig daadiyo wax ka fadli badan uu maalinkaas samayn karaa ma jiro wey marka maalinkaa wuxuu ibnu aadamku sameeyo waxa ugu fiican inuu dhiig daadiyo ama uu neef gowraco taasaa ugu fiican oo waxa weeye yani inuu ilaahay u dhowaado subxaanahu watacaala uu wax gowraco weeyaan yaa loo jeedaa kaasaa ugu fadli badan oo maarata ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka yahay jecel yahayna dayb macnaha halkaa waxaan ka qaadanaynaa maalinkaa wax ka fadli badan ama ka fiican inuusan jirin in dhiig la gowraco in wax la daadiyo dhiig وإنها تأتي بويد وإلا تأتي وإيمان دونتها يوم القيامة مالك قيامة بقرونها قيسه دي يضوضت وأطفالها يضوضت عدده دي وأشعارها شعاره دي تمه دي يضوضتها وإن الدم دي كل يقع من الله عز وجل إلهي وهو كقدعة بمكان يعني إلهي بأقبلوه قبل أن يقع على الأرض حتى أنتم الكبا كدعين إلهي سبحانه وتعالى يؤكتي دي قاس فضيبوا بها نفسا نفتي نكو يعني هبي كو هذا ويا مكو فرح سنة مركز بحنيسان oo macnaha si bukhli ah u bixin way وقالوا صلى الله عليه وسلم النبي wuxuu yiri وقد قالوا له ما هذه الأضاحي kolkay nabiga weydiiyeen ay dhahan waa maxay udxiyooyinkan nabiga ilaahayow qaala wuxuu yiri nabigu sunnata abiikum ibraahiima sunnadii aabihiin weey ibraahim qaalo waxay leeyahay ma lana minha maxaanu ka heli qaala wuxuu yiri bikulli shacratin xasana halkii tima aba waxaad ka helaysaan xasanad ka helaysaan
nacam fasuufu qaalu waxay dhaheen suufkana dhogortana qaala wuxuu yidhi bikulli shacratin timo kasta oo mina suufi dhuur maaragtay ka ahaaday dhogorta xasanatun baa ku sugan ayb xigmadda maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa altaqarubu ila allahi tacaala in ilaahay loo dhowaado id qaala subxaanahu wa tacaala ilaahay uu yidhi qur-aanka wuxuu ku yidhi fasalli lirabbika wanxar waqaala caza wajalla aayadka macnaha fasalli tuko salaaddii ciida wanxar gowrac waqaala caza wajalla ilaahay wuxuu ku yidhi aayad kale qul waxaa tiraa nabi maxamedow ina salaatii salaadayda wanusukii camalkayga wamaxyaaya noloshayda wamamaatii dhimashadayda lilaahi ilaahay ba u sugnaatay allihii rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigeeda intaasoo dhanba ilaahay baa iska leh laa shariika lahu ilaahnimada wax la wadaagsadaa ma jiro wanusuku hinaa waxaa loo jeedaa altaqarubu addabxu taqaruban ila allahi subxana wa tacala nusuka meesha loo jeedaa waxa weeye in ilaahay loo dhowaado oo loo gowraco xikmadda kale ku jirtaa waxa weeye ixyaau sunnati imaam almuwaxidiin muwaxidiinta dadka ilaahay waxiday imaamkoodii sunnadeedii baa lanoo narinaya kaasi waa kuma ibraahim alkhaliil nabiyullaahi ibraahim alkhaliil sunnadiisi baa yaa la nooleynayaa calayhi salaam id awxa allaahu waqti ilaahay uu u waxyooday ilayhi an yadbaxa waladahu ismaaciil ilaahay baa wuxuu amray wiilkiisa inuu gowraco ismaaciil ah humma ilaahay baa haddana wuxuu kaga furtay bidibxin cadiim macnaha neef weyn baa wan weyn baa lagu furtay wafadaynaahu waxaan ku furanay bidibxin bidibxin ku la gowraco wey cadiimin oo weyn waa wankii lagu furtay ta kalena waxa weeye xikmadda kalena altawasucu cala alciyaal wa yowma alciid maalinka ciidda in ciyaalka loo waasiciyo dadka wa ishaacatu raxmati in raxmadda la faafiyo bayna alfuqaraa walmasaakiin masaakiinta iyo fuqarada in macnaha laga farxiyo maalinkaa ta kalena waxa weeye shukru lilaahi subxaana wa tacaala ilaahay in lagu shukriyo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fakuluu minhaa ka cuna waadcimuu alqaanica walmuctara waadcimu lqaanica qaanica ka siiya baa layidhi qaanicu waa kaan dadka waxba weydiisan walmuctara iyo ka wax ku weydiisanayaba labadaba kadalika sakharnaahaa lakum saasaanu idinku dhib yaraynaba alla yidhi lacalakum tashkuruun inaad ilaahay ku shurudaan lan yanaala allaha ilaahay ma gaadho luxuumuhaa hilibkeedu walaa dimaa'uhaa dhiiggeedu ma gaadho walaakin yanaaluhu waxaa rabbi gaadhaya attaqwaa alla ka cabsiga oo minkum xaggiina ka ahaaday laakiin alla ka cabsiga ayaa gaadhaya ilaahay subxaana wa tacaala da'da guddaa maxaa waa tee axkaamuhaa yacni da'da guddaa waa tee sinuhaa laa yujibu fi ludxiyati min adda'ni aqala min aljadci wa huwa maa awfaa sanatan aw qaarabahaa xagga idaha haddaad gowracayso waa inay sanad jirto ama ku dhowaato haddii riya tahayna min almacsi hadday tahay iyo geela iyo loda hadday tahana laa yujziu aqalu min thaniyati min athaniyi wa huwa fi lmaacizi maa awfaa sanatan wa dakhala fi thaaniya riyaha waa inay sanad dhammayso sanadka galana gashay fi libili geela maa awfaa 4 sanawaat geelana waa inay 4 sano dhammayso wa dakhala fi lkhaamisa waa inuu 4 sano dhammaystiran tahay oo tashanaad ay gasho haddaad geel gowracayso weeye da'da laga rabaa lagaaga sheekaynayaa wa fi lbaqari lodana maa awfaa sanatayn ka 2 sano waxa weeye dhammaystira weeye wa dakhala fi thaalitha oo ka waxaanku idhahaa sanadka saddexaadna gashay labana dhammaysay liqowlihi calayhi salaatu wasalaam nabigaa yidhi laa tadbaxuu ha gowricina ilaa musina ilaa tu musina a mooyaane tu kale ha gowricina ilaa an yacsura calaykum fatadbaxuu jadca min adda'ni waalmusinatu min alancaam hiya althaniyatu waata 2 sano dhammaystirtay oo thaniyada haddaan soo sheegnay weeyaan kolka waxa weeye sidaas weeyaan macna da'da laga rabaayo salaamatuhaa xagga macnaha xagga nabadgelyadeeda waxaa looga jeedaa inuu una neefku ka ahayn laa yujzu fi ludxiya udxiyada ma gudo siwa saliimatu tu waxa weeyaan ka nabad gashan ceeb kasta min kulli naqsin fii khilqatiha abuurkeeda taasaa gudi karta falaa tujziu ma gurto alcawraau albayinu cawaruhaa alcawraau walilcarjaa walalcadbaa cawraadu waa ta ishala ma guddo tu dhutinhaysaana ma guddo walalcadbaa'u
tu gees jabanna ma guddo ay maksuuratul qarni ku geesku jaban yahay ma guddo min aslihi oon geesba lahayn ma guddo oo seenyaa la yidhaah oo maqduucatul uduni min aslihaa tu dhegteedu ka go-an tahay asalkii hore ma guddo walal mariidatu tu bugtaana ma guddo walal cajfaa'u tu weydihiina ma guddo wahiya alhaazilu latii laa mukha fiihaa ta waxa weeye aan lahayn hilibba lahayn wadalika liqowlihi calayhi salaatu wasalaam nabiga wuxuu yidhi arbacun afar laa tajuusu ma guddo fil adaaxi adxiyooyinka alcawraa'u albayinu cawaruhaa tu ila oo isheedu caddahay walmariidu albayinu maraduhaa tu bugta walcarjaa albayinu dalacuhaa tu dhutinhaysa walkasiiratu allatii laa tunqii tu aan dhiigba ay laa naqiya fiiha tu aan mukh lahayn weeye ay laa mukha fii cidaama weeye alhaazilu taan hilibka lahayn weeyaan marka intaasi waa yani intaa weeyaan oo udxiyadan hadda aan joogno weeye ruuxa muslimka waxaa la rabaa marka tu shuruudii dhammaystirtay oo wax walba u dhammaystiran yahay waa in la gowraco ta ugu fadli badan marka waa tahay afdalu ladxiya maa kaana kabshan aqrana wan baa ugu geesale yaa ugu fiican faxli oo macnaha fan ah oo ninah abyada oo cad yukhaaliduhu sawaad uu cad yahay laakiin madow baa ku jira sawaado xawla caynayhi yacni waxa weeye indhihiisa hareeraheeda madow iyo lugihiisa idaa hada huwa alwasfu aladii istaxabahu rasuulu sala allahu alay wasalam id hada kaasi waa ka nabigu doortay calayhi salaatu wasalaam wadaxaa bihi uu ku gowracay nabigeenu calayhi salatu wasalaam qaalat caaisha waxay tiri radi allahu canha allah ka raanoday in annabiya sala allahu alay wasalam daxaa bikabshin aqrana nabigu wuxuu gowracay wan geesa leh oo qoobabkiisu madow yihiin kolkuu socdo madow ku joogsanhaya wayanduru fii sawaad kolkuu fiirinayana indhihiisuna madow yihiin weeye okay waqtu dabxiha goomaa la gowracaa waqtu dabxi ludxiyati sabaaxu yowma alciid subaxa ciiddaa la gowracayaa bacda salaa salaada kadib ay salaat alciid salaada ciidda markaad soo tukato kadib haddaad ka hor gowracda ma asaxayso liqowli sal ll slam nabiga wuxuu yihi man dabaxa qabla salaati ninka salaada ka hor gowracay fa inamaa yadbaxu linafsihi naftaada unbaad wax u gowracday ee tii la aqbalay ma aha waman dabaxa bacda asalaati salaada kadib haddaad gowracdana faqad tama nusukuhu way dhammaystiran tahay wa asaaba sunnata muslimiin muslimiinta sunnadoodiina wuu waafaqay ninkaasi amaa bacda yowmi alciid fa inahu yajuusu taakhiiruha lilyowmi athaani yacni hal maalina dib waa loo dhigi karaa والثالثة مالك اللباد يكسدحات بعد العيد لكن سيد ugu fadli badneed waan soo sheegay لما روي النبي صلى الله عليه وسلم وحديث كيري كل أيام التشريق أيام ذبح أيام التشريق أولا مالما wax la gowraco weeyaan ruux muslimkii uu gowrici karaa weyn ما يستحب maxaa sunna waxa sunna ah يستحب عند ذبحها أن يوجهها إلى القبلة inaad qiblada qaabilsiisaa fiican markaad gowracayso ويقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض دعاء أقرنيا إني أنا وجهت أما آيدا وجهت وأن وجهي للذي إلهي فطرني يا أبوري فطر وجهت وان وجهي وجهي للذي إلهي فطر السماوات كأبوري والأرض لك حنيفا أنا إيلانا يدين إسلام كراعية أو دينها كلكتغية وما أنا من المشركين أنا قلنا مشركين تكمد ميهي إن صلاتي صلاتيدا ونسكي عمل كيغا ومحياي نولشيدا ومماتي دمشديدا لله الله اسكر انت ورب العالمين عالمين تربيدا لا شريك له إله نمد إله وحلا وذاك سيدا مجزنه وبذلك سيدا سانا أمرت لي أمري وأنا أول المسلمين تكورنا يا نهي نمرك آيات قرآن هرت ساشيغيسا يحديث كالبضبا وإذا باشر الذبح أن يقول بسم الله مركز أذوق جورع يسوينا بسم الله تعالى والله أكبر بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك إله كان أذو حقا كسونادي أذو نكوسونادي إن روح لو كاشا ببنانتهي ها روح والو كالن كرا يستحب أن يباشر المسلم أضحيته إنه يسوق بنفسه إن أذو جورع ذاب يعني وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج دب ما لحد روح وكالتنا ولا خلاف بين أهل العلم في هذا خلاف بمجرو أرنتاس علماء المسلمين ويسكوا فصين marka insha allahu tacaala waxaan u jeeday oo aan tanbiihan yar uga jeeday in macnaha udxiyada la gowraco
inay maaragtay waajib tahayna waan soo sheegnay ruux kasta oo muslim oo kara waxa weeye reerkiina waxa ku filan hal neef in laga gowraco ilaahay subxaana watacaala inaga aqbalo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay inaan barino weeye inuu ilaahay inaga aqbalo ducooyinka iyo udxiyada iyo salaada iyo camal oo dhan wallahu aclam wasala allah calaa sayidina maxamed wala alihi wasaxbi wasalim